xaqiiqda jirta haddaan kuu sheego amaad iiga fogaanaysaa. Markaasaan waxaan ku dhahay runtii wax la isaga fogaado way jiraan, waxaan la isaga fogaaninna way jiraan. Ii sheeg anigu wixii wanaag ku jiro mar walba diyaaran kugu lahay. Markaasay waxay igu dhahday ma awoodo maanta inaan kuu sheego, laakiin beriyaan kuu sheegayaa. xaqiiqdii anigu walwal badan ay qabtay. Gabadhan maxay ku dhihi doontaa? waxay kaa qarisay maxay yihiin? waayo shalay waxay ku tiri ardayaan ahay, ma shaqeeyo. haddana waxay ku leedahay dadka shaqeeyo anigaa ka lacag badan, ardayna waay. waxyaabo badan ayaan isweydiiyey. waxaan dhahay dadka qurbahan joogo qaarkood waa taa maqli jirtay kaniisaday galaan, qaarkood waa gaal. sidee wax u jiraan? gabadhan sidee lacag ku qaadan kartaa? anigu runtii maalintii iyo habeenkii oo dhan waxay igu noqotay su'aalan isweydiiyo. anigoo magaalada mooto bajaaj ku wado hadalkaasaa igu taagnaa. maxay habeen dambe ku dhihi doontaa? waxay lacagtan badan ku qaadato maxay noqon doontaa? arrintu waxay noqotay arrinaan aad ugu murgo. ugu dambayntii habeenkii waxaan imid xaafadda. markaan imid anigoo qabaysanin ayaan wacay xaqiiqdii. waxaan ku dhahay waan imid. markaasay igu tiri ma soo qabaysatay? haa aan ku dhahay. intaa waxaan diidayay inay dhahdo maya haddaan dhaho oris soo qabaysanay dhahdo. waayo hadalkan ayaa wuxuu noqday hadal i hortaagan oo maantoo dhan aan isweydiiyo. waxay igu tiri waan ogahay in aad sugaysid. xalay waxaan ku iri habeen dambaan kuu sheegaa. xaqiiqii ballanqaad inaadan iga fogaanaynin. haddaan runta kuu sheego waxaan ku dhahay aniga waxaan ogeyn kuguma ballanqaadi karo. waan kaa tagaana kuma dhahayo, waan kuu joogaana kuma dhahayo. xaqiiqda markaa ii sheegto ayaan wixii aan ka hadli karo aan ka hadlayaa. waayahay igu tiri. waxay dhahday anigu horta Maraykankan ku dhashay. xaqiiqa haddaan kuu sheego anigu Maraykanka aan joogo inaan ka shaqeeyo liima ogolo. saasay tahay anigu lacag fiican aan qaataa. markaasaa waxaan ku dhahay lacagta aad qaadatid maxay tahay? maxaase ku qaadataa? marka waxay bilowday gabadhii inay i warwareejiso marba dhan ay ii geyso. markaasaan waxaan ku dhahay xaqiiq anigii adi markaan isbaranaynay kaliya waxay dhahday ardayadaan ahay reerkeeda la nool. laakiin hadda wax inaad iga qarisay ayaa ii sheegaysaa. sidaa ay tahay weli kaamaana caroonin. waan ku ixtiraamayaa. wanaaggii badnaa aan kugu ogaa ayaan kugu ixtiraamayaa. waxaan rabaa xaqiiqda jirto anigaan ogeyn inaad ii sheegto. markaasay waxay igu tiri waan kuu sheegayaa xaqiiqda. ii sheegaan ku dhahay. waxay igu tiri xaqiiqadaan kuu sheego aniga dowladda Maraykanka ayaa lacag i siiso. anigu waxaan ahay qof aan dhammaystirnayn. waayo anigu maskax ahaan uma fiicni, mana shaqana layma ogolo, baawurna ma kaxayn karo. oo waxaan ahay qof familkeeda la nool oo dowladda ay lacag siiso. markaasaan ku dhahay weli kuma aanan fahmin. waxay leedahay gaari ma kaxayn karo ee inaan shaqeeyo layma ogolo, dowladda lacag i siiso. qof dhammaystiranna miihi. ma curyaanaa tahay? ma ilaa la'dahay? ma gacanaa kaa go'an? bal ii sheeg aniga weli kuma aanan fahmin. markaase waxay igu tiri anigu gacan ma li'i, ilna ma li'i xaqiiqdii. laakiin haddaan runta kuu sheego anigu maskaxdaan la ahay. markaasaan ku dhahay walaal intaa waa ila sheekaysanaysay, waa ila kaftamaysay, waa hadlaysay. weligay qof si ah oo waalan ma ila noqonine siday wax u jiraan. markaasay waxay igu tiri ilaa hadday imaadan fahmin. anigu maskax ahaan qof dhammaystiran miihi. marmarka qaar haddii xataa dad badan meelay joogaan aad tago aniga waa suuxayaa. marmarka qaar habeenkii waxbaa i bursanaayo, siday yihiidna ma aqaano. markaasaan waxaan ku dhahay quraan ma lagu saaray? markaasay igu tiri maya. markaasaan ku dhahay maxaa quraan lagu saari waayey? anigu markaa waxaan istusay macnaha qof waalan oo jinni iyo waxaa ku jiraan inay yihiin. laakiin iidaa markaasay wax igu sharxaysay aan saas u fahmayay. filim waxaa jira qof anigoo kale looga hadlaayo, ani adi isma fahmayno. filinkaasaan kuu soo diraa ee fiirso. filinkii ay ii soo dirtay. xaqiiqdii filinkaan fiirsaday waxaan arkay gabar dabaal camal ah oo dhareer ka socdo. qof weyn ah laakiin sida ilmihiioo kale u dhaqmaayo oo lagu dhahayo maskaxda ayuu eber ka yahay. qofkan waa qof la xanaaneynayo oo musqusha la geynayo, loo soo qabaynayo, raashiinka la siinaayo, oo sida ilmaheeniyoo kale suulka afka ugu jirto, dhareerka laga titiraayo. qof saasoo kale ii soo dirtay. anigu aadaan u yaabay xaqiiqdii. waan wacay
waxaan ku dhahay muuqaalka waan daawaday 2 qof ayaan daawaday maamada gabadha haysamiya mase gabadha oo musqusha la geynayo dhareerka ka socdo ii fahansii waxa ka wado markaas waxay igu tiri xaqiiqadan ku sheego aniga noloshayda waa sida gabadhaas oo maarta gacanta lagu haayo ayaan ahay dawladda Mareykanka lacag igu siiso waxaan ku dhahay walaashii xaqiiqada haddaan ku sheego aniga horta nolol lacag ma kaga dooranayo adigu waxay leedahay waxa rabtid aniga ku siinayo xaqiiqada haddaan ku sheego aniga qoys oo dhan ayaan maamulaa oo gacanta aan ku haya abaay macaan iga raali noqo aniga xaqiiqadii kugu manacay xanuunka Ilaahay uu ku keenay laakiin xaqiiqadii anigu maanta waxaan ahay qof culays familkiisa ay saaran yihiin mana awoodo inaan culays kala sii saaro maanta kaama balan qaadi karo laakiin waxa qurux badneed bilowgii hore ee aan wada sheekaysanayna inaad xaqiiqada ii sheegto aniga duruuf walba iyo xaalad walba aan ku jiro waan ku sheegay laakiin adiga xaqiiqadaada wad iga qarsatay waxay noo dhigantaa inaad i qiyaantay sidaas ay tahay maanta ani kuma dhahay xanuunku Ilaahay ku keenay ayaan ma aragtay kugu caynaa ama waa igu qiyaantay kuma dhahay aniga awal ma ogeyn inaa xanuunsan tahay sidaa ay tahay waxaan soo go'aansaday inaan ku sheego inuu xiriirkeena sii socon karin waxa ii keentay barnaamij kale anigana ma awoodo iga raali noqo wixii walaaltinimo ka badan ma awoodo waxay igu tiri lacag alla lacagta rabtidaan ku siinayaa haddii aad doontid Mareykankaan ku keenayaa laakiin waa ku bariyaa aniga adigan ku rabaa ha igu nicin xanuunka waxaan ku dhahay abaayo anigu reeraa waxaan u ahay wiilka hor joogay oo wax walba u qabanayay gabar xanuunsan xaqiiqdii ma awoodo anigu xanuunka kugu nacaynin oo wax dhibaato ah aan kugu sheegaynin laakiin abaayo maanta haddaad caafimaadkaaga tamaam yahay iyo haddii aad xanuunsan tahay aniga xiriirkaaga ma wadi karo waayo maskax ahaanan u daalanahay jir ahaanan u daalanahay waayo habeenkii markaan imaado xaafadda shaqo kalaan galay waayo inaan adigu ku sheekeeyo waqti ku siiyo marka qaar subax aniga hurdi hayso ayaan baxay marka iga raali noqo walaal waxaan Ilaahay kaaga baryaa xanuunkan inuu ka dulqaado marnaha ku fikirin wiilka xanuun kaaga tagay xaqiiq aniga duruuf hayso maantana lacag aniga kugu ma dooranay oo lacag isii xanuunka kugu qaadanaa kuma dhahay laakiin abaayo iga raali noqo anigu ma awoodo xiriirkaaga inaan sii wado maanta lacag waa u baahanahay xaqiiqdii lacag in la isiyo waan u baahanahay laakiin inaan xanuun kugu qaato oo lacagan kaaga qaato taa abaayo ma awoodo waayo aniga culays haystaa culayskana ma qaadan karo laakiin waa ku duceynaa gabar walaashiya tahay si walbaan gabadha u sheego waxay taagan tahay aniga wax alla waxaad u baahan tahay ayaan ku siinayaa waxay wacday wiilan saaxiibnahay oo hadda ka hor aan baray wiilkii waxa ku tiri halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku laahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka oo anigoo ah Subar Carab